Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan korsigii aan ku barnaynay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan anaguna wax kood aan qorin casharkan waa casharkii 16aad waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan domain name-ka website-keena ugu fur lahayn in case waxaad dhici karto website-kaaga in muddo hal sano kuu shaqeeyay sanadkaas markuu dhamaadan domain name-kan uu ka dhacaya waxaa qasab kugu ah inaad cusboonaysiisid haddii aadan cusboonaysiinin waxaad u baahan tahay inaad iska furtid domain name-kaas soo si aan ugu furno waxaan imaanaynaa qaybta bloggerka server site kadib halkan ayaa waxaa ka doonaysaa setting-ka kadib waxaad imanaysaa meeshaan blog addresska ama domain name halkan ayaad ka saaraysaa ka saaristiisna way iska fududahay in haddii aad u baahan tahay inaad domain name kale aad samaysid waqtigaas طبعا فيديودي ka horeeyay ayaad fiirsanaysaa sidaas ayaad mid kale cusub ku samaynaysaa kadib website-kaada ugu xiraysaa videoga ka horeeyay waxaan ku qaadanay qaabka aan domain name-ka aan ugu bedel lahayn website-keena waan ku guuleysanay balse in kadib ayaa waxa ay qabsaday error-kaas wuxuu yahay hadeertaan haddii aad fiirisid view blog markaan dhahno wuxuu soo saarayaa in site cannot be reachable sababtoo aan waxay tahay http protocol-kan ayaa cilad lagu hayo marka si oosan kuu dhiban waxaa samaynaysaa gabi ahaan sidiisa waa iska daminaysaa sababtoo noo dhibaan waxay tahay midkan in waa midka default-ga had iyo jeer qofka markuu soo booqdo midkan ayaa kusoo kici lahaa mal alla markii domain name-kan la imaado redirect ayaa halkan ku qoran automatically midkan ayaa kici doono sidaas awgeedu kii hore wuxuu ku xirnaa http protocol-kan ayaa ku xirnaa kan haddaan ku xirno labada protocol isma qaadanayaan marka waxaan ka leenahay in http-gan nooga dhig hadeertan haddii aan view aan dhahno website-kina wuxuu u shaqeeyaa si nadiif ah marka adna waxaan kuugu talinaynaa inaad iska xirtid http-gan waxay faa'iido kuu leedahay inaad isticmaashid kaliya markii aad website-kaaga uu ku xiran yahay waxyaalo aad important u ah sida visa card ama master card waxyaabo oo payment uu leeyahay ayaa fiican http in la isticmaalo hadeertan aniga website-kina waa un waxbarasho so wax very sensitive ma ahan so sidaan ayaan iskaga daynaynaa videogeyna halkan ayuu ka yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu